تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إلهي يا متعالي رحمة الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مقطعا waxaan ugu jawaabaynaa fariin ama rag odayaalana soo gaarsiiyeen oo naga codsadeen in codkanagana aan ku biirino arrin magaalada muqdisho ka jirta oo waxa hadda kaliya aan ka qaban karnaa ay tahay inaan codkeena ku biirino oo u dirno cidii hawshaas mas'uul ka ahayd. arrintaas waxa weeye in lambar 4 waxa ka taagan taalo loo yaqaan taaladii Axmed Gurey oo loo maadray imaamkii weynaa Axmed Gurey qarnigii 15aad iyo 14aad ka bilowgiisii dhamaadkiisii ka dagaalami jiray dhulka Harar oo taariikh hore leh nin Soomaaliya taariikh hore lagu sheego inuu yahay Soomaali yahay. marka ninka halyeega waxa loo taagay taalo annagu ka islaamaan horta taalo dhanba ma qabno oo taalo waa la ogyahay iyo sanad meel laga taagay sharciga islaamku culimada way ka hadashay meel ka joogan waa ognahay taa marka mid hadda aan ka hadlayo maahan laakiin mid aan ka hadlaynaa waxa weeye meesha Axmed Gurey taaladiisu ka taagan tahay sawirku saaran yahay sanamku saaran yahay marka magaca sidoo yahay u sheegno waxa ku garab taagan oo aan ku ogaa shalay wixii ka horeeyay laga yaabo maanta in laga qaaday magaca Allah oo isna sawiran oo qaab fiican loo sawiray oo waliba habeenkii nalnu ka daarmaan malaynayo ayaa sanamka garabkiisa ka taagan. arrintaas waa arrin aad u foolxun weey dadkii hawshaas mas'uulka ka ah waxaan ka codsanaynaa ana codkayga odayaashan ila soo hadlay ku biirinaya iyo kuwan ii yimidba in magaca Ilaahay meesha laga wado laga fogeeyo sanamka magaca Allah iyo taalo oo sawir bini aadan oo sanama ama sanamka hal caabudo ama yaan la caabudo in magaca Ilaahay laga agtaagayo waa arrin baatil weey wayna xanuujinaysaa qof kasta oo muslima ay xanuujinaysaa ninkan hore u dareensaneen oo dareesno arrinta ku baraarug waxaan codsanaynaa in laga qaado midda si fiicnaan lahayd waa sanamka oo meesha laga wareejiyo oo laga wasaaraba oo marka lagu reebo magaca Allah meesha inuu ka taagnaado laakiin u malayn maayo inay iga yeelayaan Axmed Gurey iyo sayidka iyo taa meesha ka saara maadaama iyagu awal bay u arkayeen arrin taariikha oo wadaniyada wax ka taraysa laakiin mabda islaamiyaan u sheegay anigu waxaan ka codsanayaa aniga iyo ragga kale culimada ah oo afkooda ku hadlayaba iyo cidii kasta ee muslim ah ee dareemaysa Ilaahay magaciisa subxaanahu wa ta'ala inaan sanam lagu akhrijin karin oo hadda qofkii airportka ka yimaada arkayo qofkii khadka soo maray wadadan kale ee lambar 4 ka soo gasha dhanka Zoobe arkayo oo meeshii waxa weeye meedaankii ku taala waxa meeshii ka taagan yahay sanamkii waxaana ku garab taagan magaca Allah. arrin aad u foolxun weey waxaan codsanaynaa in la kala fogeeyo oo meesha laga qaado ee magaca Ilaahay laga fogeeyo taaladaas. intaasaan ku soo gabagabeynaya waxaan rajaynayaa codsigana ay soo dhayo u daloolo inuu ku dhacayo cidii awood u leh inay hawsha fulisay waana maasantiin.